السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة سودة والاي موقال كان وحن ربا إنا ندكولا وداغو كولان كي تاريخيها مقالة أنكريج gobolka ألاسكا كودح مريسا عادا كهور مدحوينها مريكانكا دونالد جي ترامب iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Kulankan muhiimadiisu horta waxay ahayd in xal looga gaaro dagaalka 3 sano jirsaday korna u dhaafay ee u dhaxeeya Ruushka iyo sidoo kalena wadanka Ukraine. Arrimo ay kamid tahayna xakamaynta hubka nukliyeerka, ganacsiga iyo wada shaqaynta labada wadan ee Mareykanka iyo Ruushkana waa looga wada hadlayay. Haddaba kulankii markuu dhamaaday kadib shirkii jaraa'id oo ay qabteen labada mas'uul maxay ku sheegeen Putin oo casuumad u fidiyay Trump inuu Moscow ku soo booqdo gobolka Alaska horta markii hore ma waxa laga iibsaday wadanka Ruushka maxaysan yihiin labada jasiiradood ee isku muuqda ee midna Mareykanku uu leeyahay midna Ruushka uu leeyahay muxuu Putin u leeyahay laba wadan oo daris ayaan nahay iyagoo Europe iyo America ku kala yaala arrimahaasi oo ayaan idin wadaagaya balse mariiqi ah ayaa waxa magaalada Anchorage ee gobolka Alaska ku yeeshay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Waxa magaalada Anchorage ku casuumay madaxweyne Trump dhigiisa dalka Ruushka Putin markii diyaaraddu ay ka soo degatay waxarada militariga ee la yiraahdo Emeldorf Richardson oo ku taala magaalada Anchorage. Markii hore waxa diyaaradda ka soo degtay madaxweyne Trump roog cas ayaa la fidiyay kadibna Putin ayaa soo degtay rooga cas bartamihiisa ay isku salaameen oo isku gacan qaadeen. Waa markii ugu horeysay ku dhawaad muddo 7 sano ah oo labada mas'uul ay wada kulmayaan. waxa ugu dambeysay sanadkii 2018 xilligaasi oo Trump Mareykanku madaxweyne ka ahaa Helsinki Finland ayayna ku wada kulmeen. Waana markii ugu horeysay muddo 10 sano ah ee madaxweynaha Ruushka uu agaha ciidan Mareykanka uu soo dhigo. sanadkii 2015 ayaa ugu dambeysay markii shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo New York uga qayb galay khudbadna halkaasi uu ka jeediyay. markii ay iskacan qaadeen oo is salaameen iyadoo waliba hadda dadka dimuqraadiyiinta iyo siyaasiyiinta dhaliila Trump ay leeyihiin in roog cas loo fidiyo Putin isla markaana uu gacan qaado ma aysan ahayn marka la eego dagaalka uu bilaabay ee Ruushka in ka badan 3 sano uu kula jiraa laakiin haddana way iskacan qaadeen. Sidoo kalena waxaa jirtay in Mareykanku awoodiisa isagoo muujinaya diyaaradaha Mareykanka kaliya uu haysto ee B2 la yiraahdo oo goobihii nukliyeerka ee wadanka Iran lagu duqeeyay gaar ahaan goobtii buuraha ku tiile ee Fordo iyo 4 diyaarad oo nooca F-35 ka in ay dul mareen marka Trump iyo sidoo kale ay is salaameen kadib Putin oo la arkay xitaa Putin oo kor u eegaya diyaaradaha malaha wuxuu isiri meesha ma la idinku duqeey raba walow Trump nafsadahantiisa uu jooga laakiin Trump oo la hadlaya la arkay markii uu kor eegay kadib diyaaradahana uu arkay waxay soo fuuleen sidoo kalena meel podium ah oo loogu talagalay oo Alaska 2025 ay ku qoran tahay. markaas kadib waxa la yaab lahayd in gaariga madaxweyne Trump uu raaco oo la yiraahdo The Beast oo xabadu aysan karin in uu ku casuumay Putin inay wada raacaan. Putin uu ka aqbalay ay wada galeen muddo 10 daqiiqo intii loo sii waday halka kulanku uu ka dhici lahaana ay halkaasi ku sheekaysteen lama oga waxyaabaha ay is yiraahdeen. waxaa jirta kulankan halku dhigiisa inuu looga dhigay raadinta nabad. muhiimadu waxay ahayd in dagaalka Ruushka iyo Ukraine ay ku jiraan in xal laga gaaro. arrintaasi marka ayaa muhiimadu ahayd walow arrimo kalena ay u wehliyeen labada dhinacna wasiirro labada dawladood ee Mareykanka iyo ka kala tirsan Ruushka inay sidoo kale ay socdeen. haddaba wax yar aan dib u laabtay gobolka Alaska waxa laga iibsaday boqortooyadii Ruushka 30kii bishii Maaj ee 3aad sanadkii 1867 $7.2 milyan oo dollar ayaa laga siiyay xilligaasi dhaqaale burbur ayaa waxa uu ka jiray wadanka Ruushka ama boqortooyadii Ruushka. bishii Abriil ee 9keedii isla sanadkaasi 1867 aqalka sanadka ayaa ogolaaday madaxweynihii xilligaasi Mareykanka ee Andrew Johnson waxa uu saxeexay in gobolka Alaska uu kamid yahay gobol kamid ah gobolada Mareykanka bishii 28keedii sanadkii 1967. markaas kadib waxaa si toos ah loola kala wareegay oo Ruushka iyo Mareykanku ay ula kala wareegeen gobolkaasi bishii Oktoobar 18keedii sanadkii 1967 6 bilood kadib
markii Mareykanku uu iibsaday marka waxaa jira laba jasiiradood oo midna ay weyn tahay midna ay yar tahay oo waliba midda weyn ay Ruushku leeyihiin oo la kala leeyahay Big Diomede oo Ruushka uu leeyahay iyo Little Diomede oo Mareykanku uu leeyahay in 2.4 mayl ilaa 4 kiiloomitir ay isku jiraan isla markaana ay isku garab yaalaan markii uu Putin shirka jaraa'id qabanayay wuxuu yiri xitaa daris ayaa nahay maxaa yeelay jasiiradaha labada wadan waa isku muuqdaan haddaba kulanka markii uu dhacay goobtii lagu kulmay la tagay kulan albaabada u xiran yihiin ayuu ahaa waxana uu qaatay 2 saacadood iyo bar oo mas'uuliyiinta labada dhinac ka kala socotay Trump wasiiradiisa la socday iyo Putin wasiirada la socday ay kulmeen kulankaasi markii uu soo dhamaaday kadib shir jaraa'id ayay wada qabteen madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin waana shirkoodii ugu horeeyay ilaa iyo sanadkii 2018 shirkoodii jaraa'id ugu horeeyay oo si wada jir ah ay u qabtaan haddaba madaxweyne Putin ayaa marka hore hor hadlay waxana uu yiri labadan wadan badweynta ayaa kala qaybisa waxaan nahay laba wadan oo daris ah oo isku dhow sida darteed waxa uu yiri markii diyaaradda aan ka soo tagay waxaan madaxweyne Trump ku yiri galab wanaagsan dariskayga qaaliga ah sidoo kalena waxa uu sheegay uu yiri waxa aan ku iri waan ku faraxsanahay inaan ku arko anagoo caafimaad qabna arintan oo kalena ay marar badan ay dhici doonto marka waxa uu yiri hadallo naxariis leh ayaan isweydaarsanay maadaama labadan wadan ay yihiin laba wadan oo daris ah isla markaana jasiiradahooda 4 kiiloomitir oo kaliya ay kala qaybiso waxa uu Putin eedeynta dagaalka oo Ukraine kula jiro oo dusha ka saaray madaxweynihii hore ee Joe Biden waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden ayaa arintan mas'uul ka ahaa waxa aan ku iri ayuu yiri arintan ma ahan in meel aan laga soo laaban karin la gaarsiiyo oo cadawtinimo ay gaarto waxa uu sidoo kale sheegay haddii Trump 4 sano ee la soo dhaafay oo madaxweyne ahaan lahaa dagaalkan in uusan marnababa uusan dhici lahayn shirka jaraa'id oo labada mas'uul ay qabteen 12 daqiiqo oo kaliya ayuu qaatay isla markaana wariyaasha wax su'aalaha ma aysan ka aqbalin oo shirku markuu dhamaaday goobtii waa ay ka tageen Trumpna dib ayuu Washington ugu soo laabtay sida aad ka aragtaan diyaaradda Air Force One isagoo soo koraya halka Putin uu dib ugu laabtay magaalada Moscow marka madaxweyne Trump oo isaguna hadalkiisu 5 daqiiqo wax ka yar oo qaatay shirka jaraa'id inta badan Putin ayaa hadlay daqiiqadaha ugu badan laakiin Trump hadalkiisu waa uu koobnaa madaxweyne Trump marka waxa uu yiri horumar weyn ayaan ka sameynay kulan mira dhal ah iyo ahaa oo nabad aan ku raadinaynay meeshii aan u baahnayn ma aanan gaarin laakiin inta badan qodobadii waa la isku raacay waxana uu sheegay halka aan u baahannahay waan gaari doonaa isagoo sheegay arintanna waxaan haysanaa fursad fiican oo halka aan u soconno aan ku gaari karno waxa uu sheegay sidoo kale madaxda NATO inuu wici doono iyo madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo kulanka aan lagu casuumin kulanka waxyaabaha ka soo baxayna uu u sheegi doono laakiin waxa uu yiri horumar weyn ayaan ka gaarnay arintan isla markaana waxa uu xaqiijiyay in ay jiri doonaan kulamo kale oo nabad lagu raadinayo Trump xilliga ololaha doorashada uu ku jiray waxa uu yiri maalinta koobaad marka la doorto ayaan dagaalka dhamayn doonaa 24 saac iguma qaadan doonto inta aan xafiiska imaan ayaan dhamayn doonaa laakiin markii dambe waxa la arkay bilihii u dambeeyay hadda 207 maalmood ayaa ka soo wareegatay markii Trump uu xukunka la wareegay xitaa dhowr jeer ayuu warbaahinta oo duubaysa oo si aad u cambaareeyay Putin oo wuxuu yiri waan ka niyad jabsanahay waxyaabaha uu sameeyo duqeynta uu sameeyo laakiin hadda maanta kulankoodii ugu horeeyay ayay isugu yimaadeen Trump markii hadalkiisa uu dhameynayay isagoo u mahad celinaya Putin ayaa Putin microphone-ka uu shitay sida arki doontaan muuqaalkan aan tusi doono isagoo luqadda Englishka ku hadlaya markii hore luqadiisa ayuu ku hadlayay shirka jaraa'id qabanayay ayaa waxa uu yiri next time Moscow marka Moscow ayaan kugu casuumaya Trump wuxuu yiri arintaasi waa arin adag laakiin waxa uu yiri waa arin fiican oo waxa suuragal ah in ay dhacdo kulankaasi oo halkaasi uu ka dhaco marka sida muuqata labadan mas'uul kulankoodii sida ay sheegeen hadda guul ayuu ku soo dhamaaday waxaan ognahay taagtaagii ka dhaxdhacay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo Trump markii 28 bishii 2 ee February aqalka cad ay ku kulmeen walow markii dambe markii boobka cusub la dhaarinayay ay mar kale ku wada kulmeen Vaticanka laakiin sida muuqata hadda kulan hordhacayo waxay sheegeen inta badan waxyaabihii laga wada hadlay in la isku afkartay laakiin heshiis aan laga gaarin sidii xabad joojin loo sameyn lahaa ama loo dhameyn lahaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha ka soo baxa marka Trump shirkiisii jaraa'id waxyaabihii uu ka sheegay isagoo hadaladiisa shirka jaraa'id ka hadlayay waxa uu yiri I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway.
So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, but we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. هذه أضم حسنتين أصحابتي إنتان مركلة كل مدونه وصاحبكين علم وارو إذن الله سدايو نبت قليو.